السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدك كحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتمين. وأنت وقميص وأنا لباتنك بشكوبي توناد نوفمبر سنة كلبا كون يشانيا لباتنك. مقال كانوا حربا إن ندي كل وذاقو تليها بوليسكا مقالة مينيابوليس براين أوهارا أي وحا أورالي جرينك بحيي هذا الأوكاشي جاي دتك كيميد إيست أفريكا أما بريغا أفريكا oo loo maleynayay in uu Soomaalida ula jeeday dhibaatooyinka ka jira magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda uu leeyahay dadka East Africa ka yimid ayaa ugu daran ama bariga Afrika. Haddaba shir jaraa'id oo isaga iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida iyo waliba bulshada ama community-ga Soomaalida xalay ay ku qabteen suuqa ugu weyn Soomaalida ee Minneapolis ee Carmel Mall ayaa arrintaasi raaligelin uu uga bixiyay waxaan uu yiri hadalkayga si qaldan ayaa loo fahmay. arrimahaasi ayaan rabaa inaan uga hadlo in muuqaalkan oo waliba aan idila socodsiin doono muuqaalkiisii uu raaligelinta ku bixinayay balse marka hore soo dhawaad waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada. maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka, hikaada, ahadiista, ducooyinka, tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha, tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada. qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan. waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda. umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana ka mid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana luweyn karo xilliyada salaada. labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka. saddex baridda qaabka loo guto acmaasha umrada. afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin. shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha. haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona. wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 965459284 mahadsanidin. magaalada Minneapolis ama guud ahaanba gobolka Minnesota waxaan ognahay Soomaalida ugu badan ee ku nool Mareykanka in ay ku nool yihiin. marka muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay marka dhanka musuqmaasuqa laga reebo. haddaba taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis ninka la yiraahdo Brian O'Hara ayaa waxa laga soo tabiyay isagoo yiri dhibaatooyinka ka jira Minneapolis iyo nawaaxigeeda dadka ka yimid East Africa ayaa sabab u ah oo dadku inta badan ay u qaateen in uu Soomaalida ula jeeday. haddaba arrintaasi Soomaali fara badan ayaa ka carootay warbaahinada ama social media ayaa arrintaasi ku faaftay waliba dadka luqadda Englishka ay ku shaacinayeen. taliyaha booliska oo ay weheliyaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta laga soo doorto magaalada Minneapolis iyo waliba bulshada ku nool Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ayaa xalay waxay shir jaraa'id ku qabteen suuqa ugu weyn Soomaalida ay ku leeyihiin Minneapolis ee Carmel Mall. taliyaha booliska magaalada Minneapolis Brian O'Hara ayaa hadalka ku horeeyay waxaana uu yiri 3 sano ka hor markii aan mid Minneapolis bulshada Soomaaliyeed ayaa jacayl igu soo dhaweysay waana uga mahad celinaya arrintaasi. waxaana uu u mahad celiyay Jamaal Cusmaan oo ka mid ah xubnaha dawladda hoose ee magaalada Minneapolis. waxa uu sidoo kale yiri odayaasha imaamyada masaajida iyo waliba ururka dhalinyaraduba dhibaatooyin fara badan ayaan ka soo shaqeynay laakiin waxa loo baahan yahay yiri dhibaatooyinka dhabta ah ee jira inaan ka wada hadalno. waxa uu yiri waxaan goobjoog u soo ahaa meelo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya si xun ay ugu dhaawacmeen qaarkoodna lagu dilay. marka waxa uu yiri hadalkaygii haddii si qaldan loo fahmay arrintaasi raaligelin ayaan ka bixinayaa laakiin waxaan u baahanahay yiri bulshada Soomaaliyeed inaan ka wada shaqeyno dhibaatooyinka dhabta ah ee jira sidii xal looga gaari lahaa. waxaan ognahay dhalinyaro fara badan inay drugs ku jiraan, kuwa fara badan in ay dhibaatooyin kala duwan oo afduub iyo dhaca ay geystaan. marka waxa uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed waxaan uga baahanahay dhibaatooyinkaasi dhalinyaradeena haysta inaan si dhab ah aan uga wada shaqeyno. arrintaasina raaligelin ayuu ka bixiyay. waxa uu yiri hadalkaygii haddii si qaldan loo fahmay arrintaasi raaligelin ayaan ka bixinayaa. shirka jaraa'id isaga ayaa ugu horeyn doona. marka hore waxaa ku xigi doona Jamaal Cusmaan oo gudoomiyaha degmada lixaad ah xubnaha dawladda hoosena ka mid ah kadibna qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa iyaguna ka hadli doona. waxayna sheegayaan inay diyaar u yihiin in taliyaha booliska ay kala shaqeeyaan sidii dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo dambiyada ay ku jiraan iyo daraaska loogala shaqeyn lahaa sidii dhalinyaradaasi looga soo celin lahaa isla markaana magaalada Minneapolis ay u ahaan lahayd mid nabada. iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen
So my name is Brian O'Hara, and I'm the police chief here in Minneapolis. I've come to Minneapolis over 3 years ago, and right from the beginning of when I came to this city, the Somali community here in Minneapolis has been welcoming and has shown love towards me, and I appreciate it. Over the last 3 years, we have been working together to try and address some of the real serious problems that we have in our community. Councilmember Osman's been a part of that, our imams, the elders in the community, Somali Youth Link, and other organizations. We have all been working together to try and address the real problems that we have in this city. And recently, I've been to scenes where young people from our community have been seriously injured and have died in a lot of these crimes. And while talking about that, we have to be honest at times with the problems that we're having in our community, and we need our community to help us fix those problems together because it's real and it's serious. At the same time, if people have taken anything that I have said out of context in a way that's caused harm, I apologize and I'm sorry for that because that's not my intention at all. My intention is, however, to address head-on the real problems that we are having and to help keep our kids alive and to work together with our community to continue to do that. So lastly, I just want to say again, thank you so much. I really appreciate as welcoming and as loving as this community here has been to me. Many of you are personal friends and close with me now, and I wouldn't have that if it wasn't for all of you. So, and thank you, council members, for your leadership. Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفي وناك بقيت هاي إنان ما أنت أقولني ميت community جاني مالك وجوين سومالي ذا كراميل عن شوفنو ولا ليال أرنتا عن كهال لأنه وأرن جرو البتاعة نسا أو ضد سومالي أيد جيهين وأكتها دي بدن باكتشرة أنا جوا وأركتين كاميروين كشاشة ده بدن أنا كهال ليا ورلمي الناس يكون بعدنا أما هالنقطة أوبيويدك أما هالنقطة جان فايلنتيك وحول بهالنقطة مركب ما توحود تشوفنا سوى وحول قبصة كرنا قفول بمسؤول باكسارن قفول بمسؤول باكسارن سوى أوبد بعدنا علمين أب مسؤول باكسارن إد مسؤول باكسارن أنا جو مركز سومالي كسو كورني درسك أيا كسو دقديش لو كديش لو جرياجات لكن ما أنت عد كلا توه كسو جن الماجني بالباديان community جني بالبادي سواي مركب وحيالها aan ku xushmeeyo kuna mataqaana aan ugu soo dhaweeyay chief O'Hara ma chief kala chief noola mid ah chiefkan wuxuu ahaa chiefka kali ah oo community-ga aad u soo dhaweeyay dhalinyaradeena booliiska ah rank badan mataqaana siiyay oo leadershipka booliiska siiyay community-geena fahmay marka ninkan suu nuugu yimid uu ila joogay special relationship community-gan ayuu la yeeshay waxyaalaha badan ah oo marba uu la tashtana waa community-ga dadka halkan jooga waay 100 meeting ugu yimid masjidku tagay ayagii la kulmay marka walaalayaal waxaan jeclahay seebaan isku la shaqeynaa asagu waa diyaar buu yahay police officer-radeeni walaalaheen baan la jooga diyaar bay noo yihiin Soomaal meena u badbaadina waa xuntahay waana fool xuntahay mar walba in la dhaho qof ama hebel oo magaciisu aad dareemaysid inuu Soomaali yahay ayaa dadkii baarud la dhacay ayaa dadkii mataqaan dib u keenay ceeb bay nagu tahay anaga marka mas'uulkaas farta aduu kugu soo fiiqaya community meel joog marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aan la shaqeyn law enforcement-iga aan badbaadina ciyaalkeena waa inaan early bilowna waa inaan xilliga middle school markuu ilmaha ku jiro waxa kaliya uu baahan yahay waxa waaye qof adult ah mentorship inuu siiyo oo ogaado qofka meeshu ka jiro ciyaalkaaga adaa mas'uulka ah kan ciyaalkaaga saaxiibkiisana adaa mas'uulka ah marka intaas ku soo gabagabeynaya waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa anigu magacaygu Cali Gaashaan oo kamid ah odayaasha community-ga Soomaaliyeed iyo waalidiinta magaaladan degan ilmana ku koriyay waxaan maanta isugu nimid inaan ka wada hadalno ayaamahan maaragtay isfaham waagi jiray oo muhiimadda Soomaaliya waxay tahay si xeero loo xigtaalkana ku nabad galaan meesha waxa yaala xaqiiqo ah inay jirto dhibaatooyin aan ognahay oo hadda qofna looga sheekeynin jira oo ku saabsan magaaladii nabadeedii ilmaheennii iyo booliiskii iyo chiefka oo halkaan noo jooga maanta iyo saraakiil kale oo ka socota MPD Minneapolis Police Department marka waxaan sugu nimid intii maaragtay in si caafimaad qabta la isugu yimaado oo annagoo waalidiintii ah oo odayaashii ah oo community-ga ah iyo dawladdii booliiskii dadkii ka socday si u wada shaqeynaa oo u gaarnaa danta kaliya oo aanu leenahay oo ah inaan helno ilmaheennii inaan ku soo celino wadada saxda ah inay ka soo gudbaan xaaladda ay ku jiraan ayagoon dhibaato
iyo background iyo criminal record aan gelinin laakiin aan faraha la isku taagtaagin ama xoogga la saarin luqadaha iyo sida wax loo yiri ee danta la saaro waxa runta oo danta ah marar badanna waa iri si kasto oo qofku luqadiisa u sameeyo waxa muhiim ah problemki meesha waa yaala marka sidaas ayaan doonayaa maanta inaan ku soo dhaweeyo dhammaan dad badan oo community ka socda rag iyo dumarba leh kadibna maaragtay city council Jamal Asnan nala jooga iyo chiefkii iyo meesha ay ka sii wadaan hadalkii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan maanta magaalada ka socdo caruurteena maanta haysato waa wax dhibaato anaga nagu ah maanta ma aha maalinta aan ka hadleyno iyo group inaan kala baxno caruurteena way ku baaba'een meesha way ku xumaadeen meel kasta ka imaadaan kulligood way noo sameeyeen maanta anaga waxa u baahan inaan la shaqeyno booliiska iyo chiefka hadda labadooda support ka helin maanta see u hormari karnaa chiefka ilaa maalinta uu ka imaaday ilaa hadda anaguna garab istaagaya anagu raba horumarkeena inuu ka shaqeeya caruurtii wadankan horumarkiisa ka shaqeyn lahaayeen hadda maanta garabkooda istaagi laheen oo chiefkii istaagi laheen yaa u istaageena maanta inaan kala qabsano ama chiefka gacanta ku istaagno malag ku jirno anaga dhibaatana haysata anaga u baahan anaga booliiska u baahan anaga u baahan chiefka maanta la fariisan karno oo ku dhihi karno maanta caruurteena saanay ku dhacay maxaa ka qaban karnaa wiilasheena gabdhaheena way qeylinooyaan qof aan maqlayo ma jirto marka please and please waalidiinta caruurta kulligeen in community hadda caruurteena inaan garab istaagno chiefkana waa u baahannahay annagana waa isku baahannahay maanta aan kala qaybsanina group ma nihin suburb maaha inside maaha this is community ahaan inoo saabsan tahay caruurteena horumarkooda the next president inuu Soomaali noqdo ina anaga ka shaqeynaa waaye taasaan ku dhammaanayna bismillaah ani waxaan deganahay xaafadan aan deganahay especially meelaha ay taabanayso meelaha ugu badan waa xaafadeenan booliiska inaan la shaqeyno anaga dan noogu jirtaa anaga hooyooyina qofkii dareemaya hadda ilmaha meeshan wada jooga ma ahan only from Minneapolis waxay ka imaadeen America meel walba Soomaalida ciyaalkooda isaga yimaadeen meeshaanay ku dacdareysan yihiin dadka ay u baahan yihiin waa annaga dadka ay fiirsanayeen waa annagaana laga rabaa marka inaan intu isku nimaadno asa waalid inaan ka wada hadalno on ilmahan position u sameeyno kii mental qaba kii maaragtay wax kala qaba kulli meel qof walba meeshuu u baahan yahay inaan ku habayno waa isu imaan karnaa waana isla hadli karnaa jiifkuna waa mahadsan yahay sida uu noola shaqeeyay inaan la shaqeynana hadda diyaaraan u nahay thank you bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo maxamed cumar isxiiray oo kamid odayaasha karamel waxaan dhihi lahaa booliiska lala shaqeeyo caruurteena maalin kasta waxa la geeyaa qabuuraha Bonesville waad ogtihiin dhibaatooyin badan ka jira maalin kasta waxaan aasnaa caruur dibna uma eegno marka waxaan maleynaynaa maxma ina ka qaldannis waa sirxana waa inaan isku nimaana caruurteena wax qabanaa adaan waalidiinahay oo isku nimaana oo la yiraahdo maxay ina ka qaldan dawladii waa ka chiefka waa inoo diyaar dadkii Jamal iyo cid walba inala shaqeynaysa haddana innaka maqan innaka waa inaan sameynaa waalidiinta laftigooda waa inaan urur weyn ama isku nimaanaa from today inaan samaysano way parentinga meel isugu yimaadaan arintana looga wada hadlo si dawladda si fiican looga shaqeeyo caruurtana wax loo qabto oo si wax looga qabto danooda laakiin inaan noqono maalin kasta cunugan diignaa waa ka soo noqonaa haddana bari mid kale la duugay waa ka soo noqonayna war caruurteena waxay u baahan yihiin help waa inaan help gareena innaka maana cid kale ma maqna Soomaalidu waxay tiraahdaa ceelna uma qodna dadna uma maqna ma noqon karto magaaladan aan joognaa dad soo qaxay waan ognahay dib iyo dhibaato inaan ka nimid haddana dhibkii inuu naga daba yimi isagoo nooc kala qalad waaye marka waxaan rabnaa in caruurteena u tashanayo dadkeen marka waxaan ilaa waalidiinta hala kaco insha Allah